siirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam. qaybta saddexaad, dhalashada nebiga iyo barbaarintiisa. wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhashay sanadkii caamulfiil, maalin isniin ah oo bishu Rabiicul Awwal ahayd 53 sano hijrada ka hor. markuu dhashay waxay hooyadiis u cidirtay awowgiis Cabdimuttalib oo ay ugu bishaaraysay dhalashada nebiga sallallahu alayhi wa sallam. Cabdimuttalib wuu bishaaraystay wuxuuna tegay Kacbada oo Alle ka baryay wuuna shukriyay. rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u dooray magac Maxamed oo ahaa magac aan carabta inta badan aysan la bixi jirin. محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. waxaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam nuujisay dhowr maalmood Suwayda oo ahayd jaariyadii Abi Lahab, markaas ka horna adeerkiis Xamsa nuujisay. ha yeeshee intii badneed waxaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam nuujisay Xaliimatu Sacdiya oo uu qabay Xaarith Abi Kabsh. kadib markii Xaliimo 2 sano nuujisay, nebiga sallallahu alayhi wa sallam ayay soo celisay hooyadiis, laakiin waxay ka codsatay inay sii hayso. hooyadiis Aamina way ka yeeshay, sida ayna ku ceshatay mar labaad. kadib rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markuu 4 ama 5 sano jiray, isagoo weli la jira Xaliimo, ayaa maalin isagoo wiilal la ciyaaraya ayaa waxaa u yimid Jibriil. markaasuu qabtay oo legday oo intuu qalbigiisa jeexay ka saaray kana bixiyay cad yar oo markaasuu yiri, tani waa dheeftii shaydaanka kugu lahaa. kadib intuu dhaqaaqay ayuu meeshii ku celiyay. wiilashii la joogay iyagoo ordaya u yimid reerkiisii oo ku yiri, Maxamed waa la dilay. markaasay u yimaadeen isagoo miyir doorsan. markii uu miirsadayna wuxuu u sheegay qisadii. markaasay reerkii go'aansadeen inay hooyadiis u celiyaan, wayna u celiyeen. kadib nebiga sallallahu alayhi wa sallam hooyadiis ayuu la noolaa ilaa 6 sano ka gaaray. markii uu 6 sano jirayna ayaa hooyadiis aaday Madiina si ay u soo booqato qabriga ninkeeda Cabdullaahi, iyadoo ay la socdaan sadogeedii Cabdimuttalib, jaariyadeedii Ummu Ayman iyo nebiga sallallahu alayhi wa sallam. bil ayay soo joogeen Madiina, kadibna dhammaantood way soo laabteen. ha yeeshee markii dhexda la marayay ayay nebiga sallallahu alayhi wa sallam hooyadiis xanuunsatay, kadibna way geeriyootay. waxaana lagu xabaalay meel la yiraahdo Abwaa oo Makka iyo Madiina u dhaxaysa. halkaa ayuu nebiga sallallahu alayhi wa sallam ku noqday agoon iyo rajayba, waxaana kafaalo qaaday awowgiisii Cabdimuttalib oo aad u jeclaa una dhaqaaleyn jiray. ha yeeshee 2 sano kadib markii uu nebiga sallallahu alayhi wa sallam 8 sano jiray ayuu awowgiisii geeriyooday. wuxuuna markii uu dhimanayay kala dardaarmay Abi Lahab oo ahaa nebiga sallallahu alayhi wa sallam adeerkiis. kadibna waxaa nebiga sallallahu alayhi wa sallam kafaalo qaaday adeerkiis Abi Taalib oo uu la joogay ilaa uu ka hana qaaday. محمد إنك الهادي الشفيع أمين الوحي مرشدنا محمد بدرنا بل أنت شمس بنورك ضاءت البطحاء محمد. siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan aalaaba ku soo bandhigi doono siirada nebiga sallallahu alayhi wa sallam. kala sooc maalmaha Ramadaanka 4 galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Jubba.